4 milyan oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed baa primary school diyaar u ah inay hadda tagaan. meeqaad u maleynaysaan hadda inay iskuul tagaan Soomaaliya? 1 milyan oo qura baa iskuul taga. 3 milyan iskuul ma tagaan, maskaxdoodu waa qaystaa. waayo dadka TV-ga ka daawataan oo maalin kasta qalin jabinaya magaalooyinka ku yaala Soomaaliya waa dad ehligooda qurbaha jooga, lacag u diraan oo remittance u diraan, waa kuwa iskuulada taga. 2/3 ama almost 3/4 Soomaalida wadankaas wax ka hadlaya meedan arag, cid ka warqabtaa ma jirto. waa dad silent aan cid ka warqabin, tacliin ma haystaan, opportunity ma haystaan, wax ka hadlayana meedan arag. waxaan marka ugu horeysa jeclahay inaan idinka dhammaantiin aad inigu mahad celiyo xafladan aad nagala soo qayb gasheen iyo afuradan. ilaa mahadii waxa weeyaan wadankan waxa weeyaan dhibaatooyinkiisa iyo waxa maaragtay marxaladdu ku sugan yahay aad baad uga warqabtaan. marka xalkiisu inkastoo laga yaabay in qaar badan ay caddahay ama la arki karo mid ama laba, laakiin talooyin badan baa jira oo nasiib darrada uu leeyahay nidaamka la yidhaahdo doorasho dadban. ummaddii Soomaaliyeed meel kastee dunida ka joogeen 99% iyo wax la saayida ummaddii Soomaaliyeed bannaankay ka joogaan, hangool baa lagu hayaa. nidaamka la dhaho 4.5 ama doorasho dadban waa dadkii Soomaaliyeed oo dhan u diiday. dunida meel kastaan maray, maskax, cilmi, fiil kastaad eegtid, ilaah mahadii Soomaali baa joogta. laakiin wadankoodii waxay leeyihiin meel kasta xagaan ka soo galaa. halkaa waxaa taagan nidaamka la yidhaaho doorashada dadban oo musuq ah, oo isimadii Soomaaliyeed oo la yaqaanay oo dhaqankii iyo hidaha ku lahaa wadankeena oo weligeed u talin jiray, wax wanaagsan sameyn jiray, waxa ay galeen maaragtay siyaasadda iyo kana bahdishay ciskii iyo sharaftii iyo karaamadii lahayd ka qaaday. markaana beel kasta iyo meel kastoo deegaan kasta dadkeena waxay yimaada dadka ugu liita oo reer kasta leh baa ku xeersan isimadaas. waa kuwa baarlamaanka soo gala, waa kuwa wasiiro laga dhigaa. marka 22 sanadood baan hadda sidaa ku jirnaa, ummadeennii iyo dadkeennii oo dhan banaankan ka joognaa. oo sidii ku jeerto oo kale ay daawanayaan dadku, cod iyo waxay ku leeyihiin ma jiro. marka arrintaasi waa nasiib darro. waxa aan rabaa intaanan xoogaa iyadoo kooban, waxaan aad iyo aad u xiiseynayaa soona dhoweynayaa taladiina iyo aragtidiina iyo wixii runtii aad nagu kordhinaysaan, annakuna inala wadaagno wixii maaragtay aragtideedu tahay. haddii eebbeedmo subxaana wa tacaala fursadna siiyo inaan wadankan taladiisa ku guulaysano. horta saad uga wada qabtaan, ilaahay waxaan rajaynaynaa bishan khayr kale Ramadaanta in ummadda Soomaaliyeed iyo dadka meel kasta muslimiinta joogaan inuu ilaahay ajarkeeda iyo xasanaadkeeda ina siiyo. wadankeenana ilaahay maaragtay dariiqa saxayna uu maaragtay tubta saxayna toosiyo oo halka aan ku dhaqaaqno. waad ka warqabtaan oo abaar weyn oo xoog leh baa wadankeennii ka jirta. dad badan baa ku maaragtay abaarahaas ku dhintay, xoolo badan baa ku ba'ay. ummadda Soomaaliyeed hadda saad ula socotaan meel kasta dunida oo dhan haddaad TV-yada daawatid iyo meel kasta eegtid waxay sheegayaan Soomaaliya crisis baa ka taagan, intaasoo milyan baa dhintay, baa maaragtay khatar ku jira ama dhimanaya. weli miyaad aragteen dadka dowladeenna hoggaanka u ah oo wadankeena hogaamiya, miyaad aragteen iyagoo maalin qura soo istaaga xitaa nus saac ama 1 daqiiqo oo odhanaya wadankan abaaraha ka jira? dunida oo dhan marka ay jiraan crisisku waxaa la sameeyaa commission ama guddiga wadan loo sameeyaa qaran oo gobolada dadka socda, qayb kasta oo jaaliyadda ka midana waa laga soo qayb geliyaa, culamaa diinta, ganacsiga, waxgaradka, shacbi weynaha, waxaasoo dhan dunida waxa loo sameeyaa crisis markay timaado council baa loo sameeyaa. waxaasi kama jiraan wadankeena. COVID-19 kii baad ogeedeen oo dunida oo dhan wadamada kasta intay isu yimaadeen bay maskaxdoodii isu keeneen, guddiyay samaysteen. waxaasi wadankeena kama dhicin. marka ilaah waxaan rajeynaynaa in uu wadankan u keeno dowlad dadka Soomaaliyeedna wax u qabata, baahidoodana wax ka qabata. mahmaa baa jirta wax la yidhaha abaartu badda kama dhacdo, baddu always waa buuxdaa, kalluunku waa jooga. marka inakoo ilaahayna siiye badda ugu weyn Afrika, nasiib darro Soomaa dadkeennii inay gaajo ugu dhimanayaan maaragtay sanad kasta. marka waxaan anaku soo jeedinay oo qorshe muhiim ah oo xeebtaa dheer oo ilaa 3,300 kilomitir ah qiyaas ahaan, magaalooyin gobol kasta oo wadanka ku leeyahay badda maogtahay way gaadhaa. marka magaalooyin laga dhiso xeebahaas oo la yidhaaho maaragtay prefabricated houses oo kaliya intaa laga sameeyo
marka la dejiyo dad badan oo xoolo dhaqato ah la baro inay kalluumaysiga maaragtay ay sameeyaan si ay uga badbaadaan abaaraha soo noqonaya. xaafadaha la sameeyey waxay noqon karaan magaalooyin dhan bay noqon karaan. casrigan aan ku jirno hadda wax kasta waxa la yidhaaho solar power iyo wind power kaasaan waddankeena ka buuxa. marka korontada iyo maxaan ku dhahaa halkaasay ka helayaan. biyihii way jiraan. high speedkii waxaa mara baddeena Indian Oceanka fiiladii dheereed oo maaragtay fiber optic aheed oo dunidoo dhan baa marta. meel kasta waa looga soo jiidi lahaa. marka magaalooyin dhan oo xeebahaas oo dhan ku yaala baa laga sameyn lahaa oo marka dambana saldhig u yahay kalluumaysi oo dunida ay ka gadaan iyadoo la isticmaalayo. mar raba inaan ku dheeraade cilmigan ama casrigan la yidhahdo technology ama platformska la isticmaalo lagu xidhi lahaa dunida kale oo iskaashatooyinka maaragtay intay samaystaan ama ganacsado noqdaan oo wadamada dunidu toos iyaga ula dhiilgareen lahaayeen. marka arrimahaasoo dhan waa arrimo wax laga qaban karo. waxaan u baahannahay inuu qorshe ama strategy biyaha ku saabsan in waddanka loo keeno. waxaa loo baahan yahay runtii in dad badan oo waxaa jira runtii khibraa baa jira oo arrimaha yaqaana. marka waxaasoo dhan waa arrimaha wax kaga qaban karno abaaraha inagu soo noqnoqday. waxaa kaloo ilaahayna siiyey labada webi oo weyn oo Jubba iyo Shabeelle. dad badan haddii beerahaasoo kale haddii amniga la sugo waa muhiim. haddii amniga la sugo wax weyn baa laga qaban karaa runtii dhibaatadan ku saabsan abaarahan soo noqnoqonaya. iyo xoolo dhaqataan nahay ceelasha faraha badan ilaa 1500 oo ceel haddii muddo 5 sanadood ama 10 sanadood la qoro ceelasha dhaadheer oo biyo badan keenaya wax badan bay runtii ka qaban lahayd. marka arrimahaasi waa arrimaha loo baahan yahay in runtii wax laga qabto. kharash badan iyo investment bay u baahan tahay. wayn ognahay dad badan oo Soomaaliyeed oo barakacayaal baa jira oo waddanka dhan ka buuxa. waxaa jira qaxooti badan oo waddankan iyo Kenya iyo meelo badan jooga baa jira. dadkaasoo dhan xalku wuxuu noqon karaa magaalooyinkan inii sheegay oo waddanka xeebihiisa laga sameyn karo. beerahan inii sheegay dib u maaragtay ay beeri karaan. arrimahaasoo dhan dhaqaalay u baahan tahay in lagu sameeyo. ilaahay wuxuu ina siiyey oo waddankeena siiyey saad ka warqabtaan. waxa laga helay markii la eegay badda oo laga sameeyey qolooyinkan geologiga survey ku sameeyaan shirkad la yidhaahdo Spectrum oo Soma Oil ka mid ah. waxaa la ogaaday ilaa 206 block laga bilaabo Ras Kamboni ilaa meesha la yidhaaho Hobyo. Puntland iyadu laguma darin oo waagii dowladdii joogtay baa maaragtay shirtay baa diiday. 206 block waxaa lagu qiyaasay lacag qiimaheedu yahay trillion. waa hadda marka conservative estimate loo eego kala. marka trillion-kaasi wuxuu noqon karaa waa kharashkii dadka dib loogu dejin lahaa oo waddankeena oo dhan runtii saboolnimada uga bixi laheen, qaxootiga uga bixi laheen, barakacayaasha uga bixi laheen. waxaasoo dhan ilaahay waa ina siiyey. waa wax waddankeena ina siiyey. tacliintii wanaagsaneed ee Soomaaliya ka helay baa guulahan ka gaaray Mareykan ilaa mahadii dadaalka iyaga sameeyay. marka tacliintaasi waa tii loo baahnaa waddankeena in dadka Soomaaliyeed oo da'deeda dadkii ahaa oo kale oo dhalinyarada ahaa in fursadda la siiyo. maanta World Bank report buu soo saaray wuxuu yiri 4 milyan oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed baa primary school diyaar u ah inay hadda tagaan. meeqaad u maleynaysan hadda inay iskuul tagaan Soomaaliya? 1 milyan oo qura baa iskuul taga. 3 milyan iskuul ma tagaan. maskaxdoodu waa qaystaa. waayo dadka TV-ga ka daawataan oo maalin kasta qalin jabinaya magaalooyinka ku yaala Soomaaliya waa dad ehligooda qurbaha jooga lacag u diraan oo remittance u diraan waa kuwa iskuulada taga. 2/3 ama almost 3/4 Soomaalida waddankaas wax ka hadlaya meedan arag cid ka warqabtaa ma jirto. waa dad silent aan cid ka warqabin. tacliin ma haystaan, opportunity ma haystaan, wax ka hadlayana meedan arag. marka waxa aan anagu marka aaminsanahay in fursad la siiyo dadkaas khayraadka batroolka waddankaasi leeyahay ee looga faa'iideeyo. waxaan weydiinayaa wasiirka ka wasiir ahaan marka uu yahay waa wasiir federaal laakiin specifically wuxuu kasoo jeedaa state oo gooniya state ka mid ah state Soomaaliya. waxaan ognahay in dowladda federaalka iyo state-kaas oo khilaaf oo jiray xilligaas oo xukuumaddaas iyo haddaba xilligii xukuumadda Filibiins. wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaad ka qabatay khilaafkaas state-ka aad kasoo jeedo
iyo dowladda federaalka u dhexeeyey maxaad soo qabatay stateka sida guud waxaan rabaa inaad 1 iyo 2 nagu soo goobto maxaa u qabatay bulshadaas ee kugu xasuusan doonaan waayo gurigaas aad kasoo jeeda markaad dhista waxaan dareemi karnaa inaad Soomaaliya dhinaca wax u qaban karto waa mahadsantahay salaam calaykum taas waa su-aal fiican anigu waxa aan keliya oo madaxweynaha cabdiweli maxamed cali cabdixamed cali gaas isku jaamacaddan PhD da ka qaatay baan ka wada qaadanay Virginia saaxiib baan waas naqaana cabdiweli marka just laba nin oo saaxiib oo kala aragti duwan baan ahayn marka waxaan u arkay runtii inaan anigu kula taliyaan cabdiweli waxaa muhiim ah in aad sidii kale anigii adigu maskaxdeena aan isu geyno anoo federaalki iyo adigoo maamul goboleedkii qaabkee baan u dhisnaa dhaqaalaha Soomaaliya khayraadka uga soo saarnaa Puntlandna badda ugu dheer ee gobolada leedahay ajenda iyo qorshe dhan baan wada rabay inaan ka wada hadalno laakiin dariiqa sax aan marno dariiqa sax marka waxaan ka hadlayay tii aniga khuseysay ta kaloo guud ahaan oo historyga soo jiitamayo jiray waa wax kooban waxaan ka qaban karaa runtii talo un baad usoo jeedin kartaa qof marka taana intaasaan uga baxaya waxaan rabaa inaan rasha weydiiyo hal su-aal oo la xiriirta doorashooyinkii dalka ka dhacay su-aashaas waxa weeye budane masalan dalkan waxay ka dhacday doorashadii la wada arkayay siday u dhacday iyo foolxumadeedii haddii dhamaystirka dastuurka uu hirgeli waayo oo mataqaanaa waxa hortaagani ay la sameyn waayo foolxumadii miyaad loogu noqonayo mar labaad su-aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye waxaa jira dalka Soomaaliya awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo taabanaya jiritaanka dowladnimada kama dhacdo adduunka madaxweyne iyo ku-xigeenkiisii ama madaxweyne ra-iisul wasaarihiisa is haysta oo ninba office oo soo saarayo awoodaha sidee leegana xal loo gaari karaa sababtoo dowladnimadiiba waxay noqotay maraaqabaha facebook waa sidaan hore u sheegay Soomaaliya madaxdeeda iyo wadanka waxayna la degay damca siyaasadeed qof baa damaciisa shakhsiga oo siyaasiya buu ka hormariya ummadii qaranka iyo wixii u dhaartay oo kitaabka jaamaca gacanta u saaray marka haddaad taa ka hormarisid wax kasta ma xalili karaysid waayo adigiiba dantaadii ku maqan waxa ahayd inaad ummadda Soomaaliyeed dantooda aad runtii habeen iyo maalin ka shaqaysid badanaaba anigu waxaan qabaa haddii ay kalsooni qabi lahaayeen oo jaaniskooda qaadi lahaayeen dadka Soomaaliyeed waa dad fiican hadday arkaan inuu khaldaad sameeyay laakiin daacad oo honest ah waa u dulqaadan karaan waa fahmi karaan marka laakiin waxaa loo baahan yahay inaad iyaga aamintid wax result oo prediction aad leedahay waxaasaan rabaa natiijadii inaan sii ogaadaan rabaa ma jirto dunida risk waa inaad chance qaadataa badanaaba dadku waa ku siin doonaan jaayisadii iyo abaalkaad lahayd haddii aad wax saxa samaysid iyakana aad dadaashid ilaahana ka baqdid waxa saxa way imaanaysaa marka dambe saasaan u arkaa taas intaasaan ka odhanayaa ta ugu dambeysa oo ah su-aasha oo dhibaatada wadankeena haysa oo ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intaa waa isqabsadaan xukuumad gooniya khaas kuma aha giddigood cabdiqaasim salaad cabdilaahi yuusuf sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yidhaaho madaxweyne farmaajo maxamed cabdilaahi farmaajo giddigood problemka iyo dhibaatada waa aragteen idinkuna waa ogtiin anigu waktigaa inagu koobnaa waxyaalaha badanaan anigu kaambeenkan uga hadalla waxaa ka mid a wadan kasta marka ay dastuur qaadanayaan dastuurkaasi waa inuu ka turjumaa ama uu runtii wax ka qaban karaa dhaqanka iyo dabeecadahay leeyihiin iyo waxa la yidhaha wadan kasta wuxuu leeyahay wax u khaas iyo dhaqan leeyihiin iyo dabeecadooda iyo diintooda iyo culturekooda iyo historygooda waa inuu dastuurkaasi kaa ka jawaabaa wax u danaa keena dastuurkan aan haysano waad ka warqabtaan Soomaali kama qaybgelin qaybna kama qaadanin marka nidaamkan ah madaxweyne iyo ra-iisul wasaare nasiib darada jirtaa waxa weeyaan horta maxkamad ma jirto wadankan xitaa si kastuu uu yara qabyo yahay waxyaalo badan oo wanaagsan baa ku jira laakiin wixii qaadigii ama maaragtay
qofkii maaragtay refriiga ahaa oo wax qabanayay maba jooga meesha. marka waxay noqonaysaa wixii uu yidhaaho madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu wuxuu yidhaaho oo isqabsanayaan cid kale saari kartaa ma jirto. marka horta taasi waa arrimahan lahaad maxkamadda suuriya waxaan u sameyn weynay weeyaan. arrinta kale oo anagu aan tale ahaan usoo jeedin oo kaambeynkaygana ku qoran meel kasta, annagu waxaan aaminsanahay dastuurkan hadda yaalla hala dhameeyo, sidii ugu wixii ka dhiman iyo wixii ka maaragtay qabyaha hala buuxiyo hala dhameeyo. waxaan aaminsanahay dastuur kaloo labaad in la keeno oo ummadda soomaaliyeed laga qaybgeliyo, oo markaana la eego arrimiyahan dhaqankeena iyo dabeecadahan leenahay iyo waxaan leenahay. tusaalaan ina siinaya idanku waxa weeyaan waxaan u baahannahay waa dad waxaan nahay aada iyo aada caan ku ah soomaalida isqabqabsiga iyo dagaalka. marka waxaan u baahannahay nidaam meelaha ciladahan dhaqankeenu leeyahay kabi kara ama daweyn kara. marka waxaan anaku nidhi waxaan u baahannahay still nidaamkii federaalka ahaa, laakiin waxaan u baahannahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo marka dambe dee xisbi ahaan loo soo galo oo loo doorto. madaxweyne ku-xigeenka sida wadankan iyo maraykanka iyo wadamada jiro o dhan iyo South Africa, Nigeria, waxa weeyaan 4 sanadood barnaamijkay la yimaadeen xisbigaasi ummadda oo la yimaadeen waa in loo gacan baneeyaa, waa in loo gacan baneeyaa oo loo ogolaadaa barnaamijkay fulinayeen aan laga qalindaarin. haddii waa arrin weyn oo muhiima haddayna sharciga jabin. hadday sharciga jabiyaan iyo kan waqtigooda dhamaysan waa in lagu qaadaa sharciga. laakiin haddii ay sharcigii u hoggaansamayaan, siyaasadda waxaa loo doortaa dad in fursad la siiyo la dhaho 4 sano aan ku gacan baneyno dadaala 4 sano ka bacdi baan ina xisaabinaynaa. haddaad wax fiican qabateen waa inagu soo celinaynaa, haddaad wax xun qabateen waa inaga qaadanaa awoodda. marka innaka waxayna dilay wax la dhaho mooshin. waad maqasheen baan u maleynaya mooshin waxa la yidhaaho oo nasiib daro noqday arrimo siyaasad loo isticmaalo. dad baa anaan meel uga dhaceen xildhibaanada pocket moneygu markuu ka dhamaado baa la leeyahay gilgil baan u baahanay, dowladda wayna soo gilgilnaa. annaga xukuumadda aan ku jiray 2 bilood iyo maaqa 3 bilood lama gaadhin, mooshin baa laga keenay. bal ilaah baan inagu dhaariye 2 bilood maxaabad qabatay? waxaabad garanaysaa maaragtay xafiiskaagi iyo masquusha xaggee ku taallaa baa daarta ogaan lahayd xaggee bay ku taallaa. intaasaa eegaysaa weli barnaamijkaagiiba maadan gelin, maxaad mooshin iga keentaa? mooshinka waxaa la keenaa marka aad hawl qabatay oo at least 1 sano aan dhaho hawshiisaad u waday, waxaan rabaa inaan ra'yi ka dhibtan idhaaho waad ka gaabisay ama barnaamijkaas soo bandhigtay markaad tartamayso kaambeenka ku jirtay. marka mooshinkii wuxuu noqday wax dhaqankan ina baabi'iyey oo maaragtay nidaamka 4.5 iyo dad qualitieskood dadkoo dhan iskuma wada qaadayo. dad badan oo wanaagsan baa ku jira, laakiin dad badan oo majority oo waxaa jira aan xilkaas iyo mudnaanta uu mudan yahay iyo sharaftuu leeyahay, haybaduu leeyahay iyo waajibaadkuu leeyahay aanan aqoonin baa jira oo mooshinkaa keenaya. marka nidaamkan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isqabsanaya waa waxayna ragaadi. anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, madaxweynaha dowladiisa iyo kabinetkiisa golahiisa wasaaradda isagaa ka mas-uula. uma baahna in lasqabsado 3 bilood la leeyahay waxa isjiidanaya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare hebel igu dar, hebel kuguma darayo. adigu madaxweynow adaa dowladaadii jeergareynaya, adaa dowladaadii wata, madaxweyne ku-xigeenkaagu isku xisbi isku siyaasad baa tihiin. haddii tii alla ku timaado oo adoo idinkoo xukunka haya isagaa la wareegaya oo loo dhaarinaya oo qaranaya booskii madaxweynaha. laakiin wadankii ha ragaadina. wadankani wuxuu dhibaatooyin waaweyn oo aan inii sheegay iyo kuwaad ogtihiin aanan ka hadlin baa hor yaalla. waxaa ka mida waana ku dheeraaday soo gabagabeynaya qolooyinka xalana jooga waa qoslaan. waxay dhahaan marka xukuumad cusub la keeno dad badan oo maaragtay energy ku jira oo waxay ku leeyihiin wadankan waa bedelanaa, talooyinkaasaan gaadhanaa, annaka si waxaa noola dhaqantaan, bahdil baa nagu samaysaan, deeqahaadna siisaan, waxaasaa nagu samaysaan, sharcigii saxa waa ka saasaan sameynana wayna sidaa u dhaqantaan. waa qoslaan. waxay dhaheen 5 biloodun baan ku sugayaa bay dhaheen, maaragtay adigu waa ku sugayaa bay dhaheen, 5 bilood baan ku suganaa. marka waa wax marka dambe xukuumaddu dhacdana another 6 bilood bay qaadanaysaa in dowlad lagu soo dhisayo. marka waqtigaagiiba waa lumay, wuxuu ku lumay dowlad cusub aa soo dhisasid. ta uu sii daranna
dadkii ku jiray oo wasiiradoodii iyo dad kaloo badan waxay leeyihiin war meeshan 6 bilood unbaa haysataa waqtigaaga faraqabso meesha intaan xilka lagaa qaadin marka dabeecado kaloo xun oo negative ay keentaa oo markaa qofkii inuu sacrifice sameeyo oo wax badan oo maaragtay effort badan geliyo hoos bay usoo dhacaysaa niyadjab bay kusoo dhacaysaa marka siyaabo badan bay arrintaas la dhaho doorasho maaragtay isqabsiga iyo prime minister iyo madaxweyne isqabsanaya iyo waxay la xidhantahay anagu waa tala ahaan marka waxaan aaminsanahay haddii ilaahay fursadna siiyo annaka ma rabno inaan ku khasabno dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa referendum haddii doorashadu dhacayso ka soo qaad 26 25 waxaan rabnaa wadanka national biometric ID inaan sameeyno Soomaaliya oo dhan diiwaan gelino xisbiyaal la aado sanad ka hor aftiba la qaadi ama referendum Soomaaliya baa codeynaysa labada dastuur keebaa doonaysaan ma aha wax lagu khasbay haddii dadka xoogiisu ay go'aan gaaraan dhahan kaasaan rabnaa wadankan waxa ka maqan dadkii inay go'aamadii masiiriga haba qaab ay ku sameeyaan talooyinkii wadankan ka saari lahaa maaragtay waxaan curyaamiyey baa loo baahan yahay marka dadka weeyaan waa dimuqraasi dadkii ku noqon